asxaabay waxa idin leeyahay mar kale hala soo dhawaado alaabtii waxa ku dhahay kala kacsaneeda iga barteen waa diyaar ganacsigeeda waxaa dalab ahaan laga soo dalbadaa geel wuxuu leeyahay laba laf xibnaha hore iyo xibnaha dambe hadii la isku dhex karto suuqooda wadamo badan oo ku yaala qaaradda Afrika iyo Yurubta iyo sidoo kale inta badan gobolada dalka qabowgaha jiro saana oo u soo socaa waxay hirgelisay ganacsi loo isticmaalayo daawo ahaan si ay bulshada Soomaaliyeed ugu baraarugaan waxtarka uu leeyahay subaga xoolaha noocyadiisa kala duwan sidaad arkaysaan halkan waxa yaala 4 jirkaan isla markaana 4tan jirkaan mid walba waxba ku jira waxa hal abuurtay Hibaaq Cabdullaahi oo kamid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho waa hooyo haysata caruur isla markaana halkan oo ah gurigeeda aan ku soo booqanay oo ay ku leedahay ganacsiyo kala duwan ganacsigan ayaa waxa uu kamid yahay mid ay iyadu hal abuurtay waana dhuuxa geela iyo sidoo kale barida idaha sida ay sheegtay Hibaaq waxa ay tilmaantay in faa'iido badan uu u leeyahay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ay dilootay daawada laga keeno dalka dabadiisa isla markaana subagan ayaa waxa ay sheegtay in ay tahay daawo dadka Soomaaliyeed u roon dadkii horena ay si fiican u isticmaali jireen iyagoo aan isticmaalin daawo dalka dabadiisa laga keenay kan hadda la maya ida waa ido ki had shuwa ki geel waa kan wax waay idaha waay idaha iyo geel way kala fiican yihiin maaha kan wuxuu u fiican yahay idaha fashinka iyo galaha iyo jabtada inta badan bulshada Soomaaliyeed oo sanadihii dambe la jaan qaaday waxyaabaha laga keeno dalka dabadiisa cunistooda ee loo isticmaalo caafimaad ahaan ayaa subagani ay sheegtay Hibaaq Cabdullaahi inuu daawo u yahay isla markaana si gaar ah ugu fiican yahay ragga walaalkay maxaa daawooyin kiimikaal ah wiilasha marka dhahay ragga ee u fiicanta marka dhahay ragga shaqada mid maxaa shaqo adag ku ahay kuwa shaqo xoogo iska jilcan iyo wixii dhanaaba waxa noqotay shaqo culus oo taraaglayaal iyo wiilasha wax u badan yihiin maxaa kuwa matoor kor fadhiyo inta badan oo shaqo culus hay marka fadhiga badan Hibaaq Cabdullaahi oo kamid ah dhalinyarada baraha bulshada wax ku soo gudbiya mar kale iyo muuqaal cusub asxaabta gaar ahaan aaladda TikTok oo ay ku baahiso subagyada ayaa ah hooyo hami fog ka leh ganacsigan mar waa hooyo caruurteeda waqti siisa marna waa ganacsato iibisa subaga xoolaha kaasi oo ay ka samayso inta badan lafaha geela looda iyo barida idaha waxayna sheegtay in bulshada Soomaaliyeed ay sanadihii dambe barteen in ay isticmaalaan daawooyinka kiimikaalka ah balse tani ay tahay waxyaabo ay dadkii hore isku daaweyn jireen isla markaana hadda bulshada Soomaaliyeed inta badan ay xoolaha lafahooda iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee daawo ahaanta loo isticmaalo ee dalka laga helo ay yihiin kuwa ay iska tuuraan balse iyadu waxay sheegtay in kuwani ay yihiin kuwa dhab ah isla markaana haddii la isticmaalo caafimaad ahaan wanaagsan maadaama ay yihiin xoolihii dalkeena waxay bulshada Soomaaliyeed ugu baaqday inay isticmaalaan subagyada iyo waxyaabaha kale ee dalkeena laga helo wallahi ganacsigeyga waxa waayay daawo dabiici ah ee dadka inta badan ay ku baraarugsaneenin oo maxal dhahay oo aniga heli karo oo sabay karo oo dalkeena yaalo oo daawo dabiici ah waay oo dad badan isticmaaleen oo maxal dhahay waxa aniga bis bilaabo ma ahan oo dadkii hore iyo waxa waa soo isticmaali jireen daawona iika bisaba u isticmaali jireen inta badan bulshada hadda joogto inta badan maxal dhahay ku baraarugsan inta oo ku baraarugsanayna ku baraarujiyay inta qaadahayso maxal dhahay aadeen u qaateen aadeen u baraarugeen dadka xanuunsan dadka jaban iyo waxaas iyo fashinka iyo waxaas ay u fiican tahay oo waxa laga maarmaa cirbadaha qalajiya ahay ikaniiniyaash iyo waxaas isla maxaa daawooyin kiimikaal ah wiilasha marka dhahay ragga ee u fiicanta marka dhahay ragga shaqada mid
maxaa shaqo adag kuwa ahay kuwa shaqo xoogo iska jilcanta shaqadii oo hadda xamar taala iyo wixii dhanaaba waxaa noqotaba shaqo culus oo taraaglayaal iyo wiilash wax u badan yihiin maxaa kuwa matoor kor fadhiyo inta badan oo shaqo culus hayo marka fadhiga badan waxa oo leeyahay maxaa xanuuno leeyahay xanuunadaas ee daawo u tahay waxay maxaa xagga dumarka hadda ka hadlana ragga saas u dhahay waana qaateen ragga way isticmaaleen waana ka soo mahad celiyeen oo dhayaan alaabta waa la dhacnay waan alaab nadiif ah oo nin qof oo soo sheega qofka diriskiisa war ani hebel ay soo dir dad ilaahay arkay oo xagga ragga u fiican tahay ee dhahda gabadhaan la dhahay ee daawo kasto xagga ragga maxaa loo dhahay ee ragga shaqooyin badan ay hayaan oo u badan qaar fadhi iyo maxaa dhibaato oo dhibaatada dhan ay kala xijiyaan marka ragga saasa u dhahay raggana aad ugu fiican tahay dumarkana waxay ugu fiican tahay dumarkana iyakana aad ugu fiican tahay waxay ugu fiican tahay dilanka gabdho oo ciyaal ilmo ka soo halaabeen oo dhiig bax iyo oo kale umulahay u fiican tahay waxay u fiican tahay dhabar xanuunka tirada badan waxay u fiican tahay infection waxay u fiican tahay lafa xanuun waxaas oo dhan ay u fiican tahay waxay kala yihiin dhuux geel oo hadda saa ka soo aragteen saa ka arki kartiin bashaashada dhuux geel oo biyo camal u socsocahayo oo alaab nadiif ah iyo biri idaad oo biyo camal u socsocayso oo nadiif ah oo fariisaheenin ilaa waxaa geenay Afrika iyo America ba dhigi karaa gobolada inta kala tagnay marka hal abuurkay anaaba intaas ku soo kordhiya dhigi karaa waxyaabo badan way soo socdaan insha Allah wallahi waxa laga soo dalbadaa maxal dhahay Ingiriiska kale waa geeyay waxa geeyay South Africa waxa geeyay Suudaan waxa geeyay maxal dhahay kuwan kale Somaliland iyo Hargeysa iyo Djibouti iyo meelana geeynin horta gobolada iska dhaaf boort anaga xoreysanaa dhigi karaa lafa la iska tuuro oo la iska firdhiyo waay oo haddana daawo oo waxa ku jirto oo ilaahay bis u xisaaban maxal dhahay cadad iyo soo ilaahay maxal dhahay daawad oo ku shubay ilaahay u xisaaban tahay laakiin anaga Soomaalida badan waa iska firdhisaa marka alaabta la iska tuuraa idin soo sameeyay oo nadiif ah oo la hubo di social media waa iska taqaanaa adoo ceeb leena ceeb laga sheega marka alaab oo ceeb ilaahay ka dheeray oo nadiif oo aniga maxal dhahay wax yar oo faa'iido oo ka helo maxal dhahay nafsadeeda iyo nolosheeda ku quruxsada hore ugu sii wada alaabta ahaan alaab nadiif oo wax kiimikaal ma haayo alaab dalkeena ka imaad oo dabiici oo biri ama si ku noqota alaabta oo hadda maxal dhahay oo dibadaha maxal dhahay lagu soo sameeyo oo kaniiniyaash iyo waxaas ay isticmaalaan dadka waxa si ku noqon kartaa laakiin alaabtan ma laga yaabo ina maxal dhahay oo si ku noqoto ilaahay wuxuu qadar gooni waay laakiin alaab la hubo oo hooyadan iyo ayeeyooyinkeen iyo ka soo gaarnay awooyinkan Iskariye Maxamed Salaad 5 Somali TV Muqdisho wax ka ogow faa'iidooyinka qaadashada kaarka casriga ah ee IBS Classic Visa Card IBS Visa Classic Card waxa uu haystaa ogolaansho caalami ah waxa uu ku fududeynayaa inaad si fudud u maamulin karto lacagahaaga meel kasta aad joogtid si amaan ah xilliyada safarkaaga ha ka walwalin qaadashada lacag cadaan ah IBS Visa Classic Card waxaad ku isticmaali kartaa dunida meel kasta aad u safartid adigoo lacagtaada kala bixi kara ATM-yada yaala adduunka IBS Visa Classic Card waxaad wax ugu iibsan kartaa suuqyada iyo dhammaan dukaamada caalamka sidoo kale wuxuu ku fududeynayaa inaad wax ka iibsan kartid internetka ku horumari xirfadahaaga aqooneed oo wax ka bar internetka adigoo isticmaalaya IBS Visa Classic Card IBS Visa Classic Card wuxuu ku sahlayaa in aad lacagaha aad ka samayso internetka ama kugu soo dhac baybalka uga bixi kartid si fudud oo amaan ah qaadashada iyo dalbashada kaarka IBS Visa Classic Card waa in ka yar 5 daqiiqo booqo xarunta kugu dhow ee IBS Bank